ciidanka booliiska Soomaaliya waa ciidan federaal ah ciidan maamul goboleedyadu leeyihiin waa jiraan labadabana dastuurka dhigaya ciidanka federaalka dawladdu waxay ka soo qoran kartaa gobolkay doonto iyo meesha ay dan moodo ciidan waa laga soo qori karaa gobol kasta ha ahaado region kasta ha ahaado maamul goboleedyaduna waxay ka qortaan inta iyaga ay gacanta ku hayaan marka biciid maaha inaan galgaduud ama muxuu ahaa Hirshabeelle ama gada aan booliis ka soo qoranno wax dhibaato oo ma arko taa intaasaan kaga gudbayaa muxuu ahaa su'aasha labaad isagana uu soo weydiiyey bajaajleyda sidaad la socotaan bajaajleydu waa dhalinyaro badan oo Soomaali ah muxuu ahaa guddi bay leeyihiin 9 nin baa guddi fulino ah dhowr iyo 30 waxay yihiin golo dhexe oo nidaamsan dhowr iyo 10 ku weeye ciidanka booliiska ayay la shaqeeyaan wax eedana kama soo sheegtaan iyaga habeen mootooyinkooda la dhaca marka ciidanka badbaadiya ay habeen walba u soo cawdaan inay mootada noocaas ninkii lahaa waa laga xoogay oo la wataa oo booliisku badbaadiyo ayaa badan muxuu ahaa aniguna waxaas lahaa muxuu maanta waxaa loo oranayaa 20 kun ee dhalinyarada ee bajaajyada habeenkii booliiska ilaaliya ammaanaha loo soo jeediyo laakiin waa dil aan ma filanaynin laakiin waa qof iyo aragtidiis laakiin 20 kun iskama socdeen intaa waxaa dheer faa'iidada ay ku qabaan maxaa yeelay meelo badan oo aan laga celinin baabuurta kale laga celiyo xitaa madaxdiina baabuurtooda ayaan mari karin bay maraan maxaa yeelay dadkuna faa'iido ku qabaa iyagana faa'iiday ku qabaan xogaa yar saxmada waa sameeyaan marka taas intaas uga gudbayaan dhibis kuma qabno waana ila kulmay aniga guddigooda fulinta anay iigu yimaadeen xafiiska aad bayna noogu mahadceliyaan sidaan aan muxuu ahaa ula shaqeyno ku takrifalidda awoodda taliyaha ciidanka booliiska oo 2 nooc ah mid xushmad darro ah iyo mid muxuu ahaa ciidanka dhexdiisa waxaan filayaa meel adduunka ka dhacday ma laha headquarterkii booliiska dowladda federaalka ee Soomaaliya inta yimaado qof mas'uul intuu yimaado wariyaa istaag war baan ka duubayaa intuu yiraaho oo xaruntiisa iyo xafiiskiisii tago meel ay ka dhacdo ma jirto aan ugu dulqaadanay oo aanan meediya tegin oo aanan cid u sheegin oo aanan cid ka dacweyn maxaa dhacay annagu waxaan dul u leenahay inaanu shacabka ku dhex jirno xaafadaha ku dhex jirno mas'uuliyiinta ku dhex jirno ayaa mas'uuliyaddeenu tahay laakiin mar haddii halka laga sheegay hadda ka horna dhowr jeer meediyaha aan ka maqlay cabasho noocaas ah waxaan rabaa baarlamaanka inaan u sheego in yani xafiiskayga gudihiisa iyo albaabkiisa ka soo baxaya nin mikrafoon wata le waryaa waxbaan kaa duubaya astaaba anigoo intaas sarreeya gaasi la socoto taas waxaan leeyahay xushmad darro maahayna ma aanan la hadlin meediya kama hadlin waa qadarinay waa mas'uul sare sidaasuu ku soo baxay haddana xushmad baanu haynaa baarlamaanka hadduu yahay wasiirada hadday yihiin shacabka hadday yihiin waa noo yimaadaan ixtiraamkaasina mid waalidkeen ugu soo barbaariyo waa midaan ciidanka iyo saraakiilnimada kula nimi maaha